كيف روحدا والرعلينيو روحدا تبدو وانركسدي الرادية يرت الرادية run ahaan xamar iyo raasamaal muqdisho ay rabtay iiga raadi malaha yartii la raadinaya xamar bila lagu sheegay waa xamar iyo soo dhaweynta hobolada qaranka sultaan seeraar iyo xariir axmed oo markii hore ka soo kicitimay dhanka iyo jigjiga ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay muqdisho safarkoodan oo qorshihiisii hore ahaa inay si toos u yimaadaan caasimadda xamar ay laba toddobaad ku yara hakadeen ama nasteen hargeysa halkaas oo uu suldaanka geeska wacdara ka dhigay isla markaana laba show oo laga bogan waayay ku qabtay hoyga fanka ee magaalada hargeysa waxaa safarkoodan ku wehelinaya xidiga reer muqdisho dabcan reer muqdisho iska noqon cabdidaanto oo isaga lafahantiisa maalmihii u dambeeyay hargeysa ku sugnaa labadan hobol suldaanka geeska iyo king crab oo codka shacabka si rasmi ah u hantiyey ayaa safarkoodani noqonaya kii ugu horreeyey ee abid ku yimaadaan xamar ama meel ka mida koonfurta soomaaliya waxaa garoonka aadan cadde international airport ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka socday wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya alla maanta reer muqdisho nasiib wacana mar hadday isla heleen labadii hobol ay midba gaar u codsan jireen showga dabaaldega farxadda ciidul adxana waa idinku soo maqan yahay bahda cabdi askari tiibo ee muqdisho ayaa maanta goobjoog ka ahayd soo dhaweyntaasi taariikhiga ورالعنتي دوني ذي حرها قضاء ودالتي أنتي حيرينيني نفتو حولتي باتهاي بسم الله الرحمن الرحيم waxaa marka koobaad farxadii inaan ku suganahay maanta caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho aniga saaxiibkay Xariir Axmed anagoo muddadii u dambeysay aan joognay Hargeysa caasimadda Soomaaliland kuna lahayn barnaamijyo kala duwan in badan baan ku rajeynay oo aan hamiga ayuu ku jiray inaan mar uun soo booqano Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan laakiin maanta Ilaahay saamahayaga soo qaaday waxa farxaday inaan ku suganahay marka koobaad waxaan salaan ballaaran u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan shacabweynaha xamar aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay Ilaahay baa mahad maanta halkan nagu simay farxad bayna aan ahaan ii tahay inaan maanta dhex taaganahay Muqdisho oo in badan ku taami jiran inaan imaado insha Allah haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan qaban doonaa aniga walaalkay Xariir barnaamij insha Allah qurux badan oo show ah ciidan isleenahay insha Allah haddii Ilaahay raali ka noqdo inaan shacabka iyaga iyo dadka iyaga aan si wanaagsan aan isu dhaxgalno oo aan barnaamij qurux badan oo qabanayaan doonaa insha Allah وسلامتين إذا كويس كدوما دمانتين أدبا نوقف فرح سناي أنا نحكي قلنا عاصمة الصومالية حمر بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لكم كسلام يا دمان شعب وينها مقدشو ما أنت بقى نبض مني مقالة مدح مقدشو وهو يدي صومالي ذا مركها وحنا ليه الشعب وينها ملك استشوقه وحنا شيءنا أنا أقول قبل أن هدوي له هيدا علي صاحب كسلطان سهرار show aad u qiimo badan meel kasta joogan aan ku raali gelin doono anagoo hadda ku sugnayn Hargeysa haddana joogno magaalada madaxdii Soomaalida oo maanta leenahay baga Ilaahay bana nabad keenay dhammaan shacabweynaha halkan ka salaamaya iyo dhammaan dawladda ayaan halkan salaan sharafeed uga jeedinayaa shacabweynahana waxaan leenahay show ayaan la maqnaan haddii Ilaahay yiraahdo waa mid aan soo min doono haddii Ilaahay yiraahdo waa markii koobaad ee xamar nimadnay run ahaantii waanu jeclaan doonaa oo ku soo noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo saan shacabku raali gelin lahayna falweeda ayaan galinaa oo mataqaanaa heeso kala duwan oo kuwii hore ahayn oo cusub ayaan u soo bandhigi doonaa aniga saaxiibkay sultaan seerar ku hadba marka waxaan leeyahay bagaan nabad ku nimidnay dhammaan aad ayaan salaamayaa kal halkan aan ka salaameynaa walaalka iyo saaxiibka iyo Cabdi Askari Tube oo leenahay saaxiib waxaan nabad ku imaanay in badan baad nala soo shaqeysay in badan baad isku xidhka aad ka qayb qaadatay waxaan nabad ku imaanay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaan dhex taaganahay alxamdulillah aad baan halkan kaaga salaameynaa walaalo halkan waxaan salaan diiran isagana ugu dirayaa saaxiibkay Cabdi Askari Tube oo leenahay maanta xamar ayaan ku sugannahay halkan aad ayaan uga salaameynaa waa ninka shaqooyinka inta badan la qabta bismillah waxaan soo dhaweynayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo dhaweynayaa fanaaniinta Soomaaliyeed geyiga Soomaaliyeed aad ka looga jecel yahay fanaaniinta waaweyn Xariir Axmed iyo Sultaan Seeraar dadka aadka u daneeya fanka Soomaaliyeed ee aadka u jecel yihiin gaar waxaan maanta ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliyeed ay mar dhow
bandhig faneed weyn ay ku qaban doonaan maalinta ciidda shacabka Soomaaliyeed aan ugu sii hordhacay aan soo dhaweyntooda sharaf ay tahay inaan halkan ku soo dhaweeyo iyagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladiina ku soo dhawaada dalkiina hooyo magaalada Muqdisho shacab idin jecel dad idin jecel iyo dawlad idin jecel ayaa idin soo dhaweynayso wax kale oo aan idin iraado malahan dadkiini oo idin heelan iyo shacab idin wada sugayo ayaan halkan idinkugu soo dhaweynaya waan idin marxabaynaya waana arki doontaan shacabka reer Muqdisho heelada iyo farxadda ay idin qabaan ayaan idinkaga sii hordhacaya insha Allah soo dhawaada idinkan oo mahadsantihiin aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka sida quruxda badan uu noo soo dhaweeyay dad waxaan nahay ka yimid magaaladoodii u yimid dad wadanka ku cusubmanihin anigu waa markii igu horeysay aan ahaan suldaan ahaan iyo saaxiibka xariir ba aan Muqdisho imaanay in kastoo in badan aan ku fikirayna ilaahay maanta saamaha iga soo qaaday dad waxaan nahay wadankoodii yimid dad shisheeye u yimid manihin aad baan ahaan ugu faraxsanahay aniga saaxiibka xariir dawladda iyo shacabka isku duwanay sida noo soo dhaweeyeen aad baan idinka mahadcelinaynaa ما شاء الله waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka xigeenka warfaafinta sida quruxda badan uu noogu soo dhaweeyay magaaladanada aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waa magaaladanadii baan nimidnay dad martay manihin walow ay tahay markii ugu horeysay nimidnay haddana waxaan nahay wadankoodii yimid meel Soomaaliyeed baan nimidnay wadankanagi baan joognaa aad ayaan u salaamayaa dhammaan intii ka qayb gashay soo dhaweyntanadana runtii waxa weeyaan farxad bay noo tahay inay walaalahanay magaalada Muqdisho ay yimaadaan magaaladooda ay yimaadaan Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa qof kasta oo Soomaali ah iman karo saaxiibaday sidii quruxda badneed ee wasiirka xigeenka warfaafinta iyo xildhibaanadii kale iyo dadkii kale oo saaxiibada ah soo dhaweeyay aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantood iyo bahda SNTV ayagana oo qayb muhiim ah ka qaatay ama kaalin lixaad ka qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa qof kasta oo nagala qayb qaatay waxaan leenahay waad mahadsantihiin insha Allah fanaaniinta waxa u yimaadeen inay qabtaan show inay qabtaan sida caadada waxa weeyaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool waxay aad u jecel yihiin garanaysa dhalinyarada fankooda hadda aad ka loo xiiseeyo suldaan iyo xariir oo saaxiibaday ah waxa u yimaadeen inay show ku qabtaan marka aad baan u soo dhaweynaa waxaan leenahay magaalada ku soo dhawaada shacabka reer Muqdishona waxaan leenahay fagaaraha yimaada hadda leeyahay yaa la kala maqnaan ha قردية بصاص ربته يقرادية روقها وجر رسم المقدشو يقرادية يرترادية